السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وراليال وأنا وبحينا موسى أو دب أقصى نقضي برنامج يدني تحنها ها كسب سنة فوش يورتشيفتا أو هرب إنه يقص عن شري إن شاء الله تعالى ما أنت وحربها هدي الله أود له ورالك النقضة إن هل كان محق هايو كسوقاته أرين ay gabdhaha Soomaaliyeed ee xaamilooyinka ah ee foolanaya ay inta badan ka walwalaan oo ay inta badan ay ka taxadaraan waana wax fiican inuu qofku ka sii taxadaro in uu helo wax qalbiga u dajiya arinka inta badan ay ka walwalaan xanuunka uga daran waxa weeye inay isgoosato inay hooyadu hoos isu jarato marka insha Allah tacaala waxaan rabaa inaan halkan ku soo qaato goorma ayaa loo baahan yahay in la sii jaro hooyada dhalaysa ma lagama maarmaan baa in la jaro gabadha ugubka ah ee ilmihii ugu horreeyay dhalaysa iyo gabadha ilmo badan soo dhashay ma isku si baa loo jarayaa إن شاء الله تعالى وحربا إن هالكان إذا كنت صو قابكي وعلقوا صبح لها دورت لو باهين هاي إلا ترى إن لو باهين هاي إلا ترى إن لو باهنين إن شاء الله تعالى هالكان ومسكتي وماشي علقوا كنالك علقوا سومري بدنا عبد قبل مركي أي نبركوا وقبته وحي تا نبركاس قبل cunugu wuu soo durkayaa mar walba awal meelaha soo joogay horta cunugu ma sidan buu u dheereeran yahay markuu caloosha ku jiro maya cunugu wuu isku soo jaban yahay wad aragtay si uu micnihii calooshu uu ugu helo yacni makaan uu maaragtay si fiican ugu jiri karo wad aragtaa markii badanaa waalidkan qaar waxay yiraahdaan hebel markii yacni qofku duqoobo oo waayeel noqdo isku soo ururo hebel waa la isku soo jabiyay ama uu dhintaba qofkaas waa la isku jabiyay marka isku jabsanaantaas waa qaabka uu cunugu caloosha ugu jiro okay marxaladaha markasta oo nabarku qabto cunugu wuu soo durkayaa waad aragteen inta badan dadka ku nool maxaa ku dhahayo wadamada reer galbeedka markii gabadha la rabo markay isbitaalka timaado waxaa lagu xiraa caloosha waxaa looga xiraa si looga qaato xoogaa yaroo cabir ku saabsan cunuga caafimaadkiisa iyo hooyada nabarada qabanayo intay isu jiraan waxaa lagu xiraa computerkeed yaraa suul baa lagu xiraa Swedish waxay yiraahdaan CTG caloosha looga xiraa suulkaas halkaas computer baa yaalo computerkaas wuxuu cabirayaa hooyada nabarkeeda intay isu jiraan iyo waxa ugu muhiimsan oo ah cunuga caafimaadkiisa sida uu yahay cabir baa u sheego كبعدي 20 أما 60 دقيقة كبعدي هو يدا waxaa la geliyaa gacan labada far oo laga cabir qaadanayo inta sentimitir minka ilmagaleenka afkiisu furan yahay in ay hooyadu yacni ay bilow tahay inaysan bilow ahayn in ay dhameysatay foosheedii halkaas laga cabir qaataa waad aragteen meeshan waa kanaal yacni waxba ma aragtay marka dambayso cunugu wuu soo soconayaa wuu soo durkayaa nabar kasta oo qabto cunugu soo bush garaynayaa okay hooyadii 10 sentimitir marka dhameysatay hooyada waa inay 10 sentimitir ay u dhamaatay sentimitirkii waa cididaada waa 1 sentimitir markasta oo uu dhamaado marka ilma gareenka afkiisa kanaalkaas afkiisu wuu saas isku ahaa wuu sii durkaa wuu weynaanayaa markaas cunug madaxiisa soo riixaya okay marka goorma ayaa marka hooyadii ama gamicnihii farjigii hooyada goorma ayaa loo baahan yahay in la jaro qasab ma aha in la jaro waxaa jiro cunug madaxiisu soo mari karo ayadoon la goynin oo hooyadu isgoosan waxaa jirta inuu cunugu mararka qaarkood asagu uu jaranayo ama kor wax yar isu dilaacinayo ama hoos wax yar laakiin mar walba umulisadu way ka taxadaraysaa inaadan isgoosan way jiraan kuwa badan
iyagoo taxadarayay ay hooyadii isgoosatay laakiinse waxaa la jiraa cunuga Soomaaliya oo kale gabdho badan oo aan yacni halkaan aan ku wada kulannay oo iiga sheekeeyay Soomaaliya ilmo kusoo dhaleen waxay ii sheegeen in waqti fiican hooyada loo sii gooyo run ahaantii necessary ma ahan lagama maarmaan ma ahan in la gooyo waxaas imaan kara dhiigbax cunugii oo aan soo dhawaanin in la iska sii jaro ma fiicna cunuga waxaa fiican see lagu gartaa in la jarayo hooyada waxaa lagu gartaa markii sidaan oo kale ay timaado waa ii jeediin aan u malaynayaa insha Allah waxaa soo buuranaya jirkii hooyada yacni farjigeedii intuu ku fadhiyay wuu soo kuusanayaa umulisadii waxay arkaysaa in cunugaanu madaxiisu ay ciriiri ku tahay maxaa la yiraahdaa farjiga afkiisa iyo in kale qasab ma aha hooyo kasta in la gooyo ilmaha qaar baa caadi u soo baxa qaarkii ay ku dhigto oo ciriiri noqoto marka meesha badanaa waxay jaraan ay og yihiin inuu cunuga ka haysto meesha laga haysto cunuga madaxiisa oo uu kaga dhagan yahay ayay jaraan qaar baa badanaa kor uu ka haystaa kor baa loo gooyaa inta badan hareeraha looma gooyo waxaa loo gooyaa dhanka dabada meesha maxaa ku dhahayo laga saxaroodana looma gooyo badanaa waxay u gooyaan halkaa dhinacaasa laga gooyaa marka cunugii wuu soo fuqayaa badanaa meesha laga haysto ay kaga dhigan tahay okay waxaa jirta marka maradan oo kaleeto oo biyo kulul lagu soo qooyay biyo kulul lagu soo wixeeyay oo yacni biyo qandaca oo aan kululayn ku gubaynin laakiin biyo qandaca oo macaan ayaa badanaa cunuga maxaa ku dhahaa meeshiisaas sidaan hore idinku sheegay cunuga madaxiisu hoos ayuu jiraa dhakada meeshaas ayuu la soo hormarsadaa ugu dhuuban okay marka gabadhu saysan isu goosanin maradaana looga qabtaa cunuga madaxiisa suu kor u soo aado maradaasaa looga qabtaa badanaa markii marada saa looga qabto gacantooda iyo maradii ama gacantii wuxuu xadidayaa inuu cunuga madaxiisa hoos aadin oo aadan isgoosanin markuu cunugu hadduu soo bixi karo wuu soo baxaa dhib ma laha hooyadii hadday xoogaa isdilaacsato badanaa in maqas qofka lagu jaro iyo inuu asagu xoogaa isdilaacsado waxay ii sheegeen umulisooyinku inay xoogaa mararka qaarkood roon tahay inuu cunugu isdilaacsado wax aan yacni dhib ma lahan way ka biskoon og tahay in maqas lagugu jiro iyo inuu cunugu xoogaa yar uu saa isku dilaaciyo madaxii soo dilaacsado waxaa biskoon og in aad xoogaa isdilaacsato inta maqas lagugu waxayn lahaa waxaa jirkaagu uu dhaqso u biskoonayaa markaad adigu xoogaa ismaaragtay uu isdilaacsato laakiin saan hore idinkugu soo sheegay qasab ma ahan hooyada ilmaha badan dhashay badanaa miskaheedu way kala durkeen meeshaana ilmo badan ayaa soo maray way caadi weeye waa la fiirinayaa qaar badan ilmaha saddexaad iyo afraad wixii ka dambeeyaba waxaa laga yaabaa inay ilmuhu kasoo bixi karaan okay haddii kasoo bixi waayeenna mar walba saa idinkugu sheegay qasab ma aha in horey loo sii dilaaciyo horey looma sii dilaacinayo cunuga madaxiisu halkaan marayo lama dilaacinayo waa inuu cunuga madaxiisu uu meesha soo buuraa wuu soo buuranayaa way arkayaan in cunugu in la caawiyo uu u baahan yahay oo loo jaro haddii kalena asagaa soo bixi kara dhiigbax ayaa imaanaya haddii horey laga sii jaro hooyadiina nabar bay ku noqonaysaayo dee waa iska garanaya meer iyadoon diyaar cunugu ahayn la sii jaray waa laga yaabaa dad badan ina yacni qaarkood ay u arkaan in ay macnihii sida Soomaaliya qaar badan la sameeyo ama qaabka hadda idinkugu sheegay inaan la sugin la sii jaro qaar badan laga yaabaa inay u arkaan inay fiican tahay laakiin intii badnayd aniga u soo taagnaa waxaa qurux badan in loo sugo ilaa ma la arko in cunugu uu soo bixi karin ilaa xoogaa yar loo jaro mooyaane okay markii gabadhu dhasho markaa qaar maxaa la yiraahdaa waa la fiiriyaa inta badan way soo fiiriyaan inay gudaha soo dilaacsatay inay kor dilaacsatay mararka qaarkood oo la rabo in la kontaroolo in ay gabadhu isu go'day dabada iyo maxaa ku dhahayo iyo maxaa ku dhahaa farjiga ayaa gacan saa u mariyaan
oo ayagaa xuubkaasay garan karaan inuu qafiifay iyo inuu qafiifin inay gabadhii isgoosatay iyo in kale badanaaba haddii ay ka shakiyaan waxay u yeertaan umulisooyinka dhakhtarka ayaa badanaa eego ama talo operation ayay u baahan tahay marka maxaa keenayo in yacni mararka qaarkood gabadhii isgoosato iyadoo cunugu caadi uga soo bixi karo waxaa keenayo markay xoog iskaga soo riixdo adoo cunugu kaa soo bixi karaa marmarka qaarkood isgoosanaysaa taasna waxaa keenayso waxaa fiican inaad dhagaysato oo aad la yeelato maxaa la yihahdaa xiriir adiga idin dhex mara umulisadii markay ku tiraahdo hadda soo riix markay ku tiraahdo hadda ha soo riixin marka ugu dambaysa cunugu soo baxayo lama rabo inaad xoog iskaga soo riixdid because haddaad xoog iskaga soo riixdid maradan maanta haddaan soo qaato haddaan xoog u kala gooyo in badan baa israacayso haddaan tartiib u jaro waana inaad tartiib usoo riixdid markay ku tiraahdo hadda soo riix marka la soo riixayana waa marka nabarku ku hayo hadduusan nabarku haynin cunug ha iska soo riixin haddaad asagoo nabarku haynin aad iska soo riixdid ilmaha waxaa dhici karta in ay maaragtay ay ku bararto maxaan ku dhahayo farjigu inuu ku bararo ayaa dhici karo hadduu ku bararana waa iska taqaanaa cunugii ciriiri buu ku noqonayaa makaankii wax walbaa iska dhici karo waa isgoosan kartaa marka waxaa fiican in uu qofku uusan cunugu xoog iskaga soo riixin marka dambe oo cunugu soo baxayo neefso adoo taxadaraya soo riix mar walbana xiriir yacni la samee oo indhaha ah maqal qofkii markaa ku arag taagan micnihii markaas ha kuu turjuma ama ha kuu qofka isagoo luqad yaqaano isagoo horey usoo dhalay ayuu marxaladaasoo kale markuu ku jiro uu u baahan yahay caawinaad marka mar walbaba waxa ay ku dhahayso kala tasho marka dambe cunuga uu soo baxo oo kaleeto goormo ayaa hooyada loo wareejiyaa qaybta hadhowto ilmaha iyo hooyadu ay ku